aan ka bilownay London ee inaan maxkamadda Ingiriiska High Court London aan geyno arrin ku saabsan waxyaabihii doorashada cawaaqibkii ka dhacay weli way socotaa Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad waxa kale oo aan la xiriirnay oo qoliyaha dibadda ay la xiriireen labadaba London kaliya ma hay'tii hay'adna waa maxriirna International Criminal Court wixii cawaaqib ka dhacay doorashooyinka dhiigii daatay iyo waxyaabihii kale ka dhacay Hargeysa iyo bariga iyo galbeedka oo kala xiriirnay iyaduna way socotaa labada maxkamadood way socdaan wada hadalkuna way socdaan istiidimayaan waxaana labada maxkamadood u bilownay hawshooda kadib markii doorashooyinkii la qalloociyay cadaalad darro fool xun oo aan xishood lahayn ay ka dhacday bari iyo galbeed iyo dhexdaba oo aan waxbaba loo aabaday ay ka dhacday iyo weliba la raaciyay in maxkamadihii Somaliland la iska kala hortaagay maxkamadii eergaabaan u tagnay waxay tiri wax agar lagu siiyay in aan ka qaban dacwadiina tii Boorman tagnay waxay tiri waan ka qabanayaan laakiin cadayn siin maayaan ka qabto oo meelaha tahay in ka qaban tii Hargeysa aan tagnay waxay nagu tiri ama baan qabaa inaan ka qaban dacwadiina maxkamadii saraan tagnay maxkamadii saraan nuri waxaan ka waxaan rafcaan ka qaadanaynaa diidmada aan kala kulanay maxkamadda hoose way naga diiday markii ay taa diiday rafcaankiina maxkamadii saraan ayaan hagaaga hadda waxaan furanaynaa dacwad historia ilaa maxkamadda sare ee waddanka waxa weeyaan maxkamadda historia oo taasna maxkamadda sare way naga diiday markii maxkamadihii sare kuwii maxkamadii sare iyo kuwii hooseba ay sidaas isku hayo taageerayeen naga diideen inaan dacwad furano batatan hadda gebigeedii si qayaxan ay qasab nagu noqotay inaan dibadda maxkamadaha jira ee sharciga caalamiga uu noo banaynayo inaan tagi karo inaan arrinteeda gaarsiino oo aanu ku dadaalo inaan cadaaladii aan halkan ka weynay maxkamadihiina iska kaaga hortaageen waddanka bal hadda in adduun weynaha aan la kaashano inaan dadka iyo dalkeena ugu danayno cadaalad ku soo celino saasaan maxkamadahaas u tagnay waraaqadoodii waan haynaa Allahumma salli ala nabiyyina wa socdaan waan ku kalsoonahay inaan ka gungaari karo hadii alla yiraahdo wada hadalada xukuumadana way socdaan oo istiidimayaan in gudoomiyaasha waddanka geestiisa ku weydiiyo waxta sharci yaqaan meel kala duwan oo loo maxkamado sarsare heeg iyo maxkamadda Ingiriiska ayaa sheegtayna ka farteen dacwado ku saabsan laliyaas u jeedsin doorashadii dhacday marka arrimahaas hadii meel marano dacwadaas bad xishaan in yaani qarankii ku keenaynin in irresponsibility ama qeyr muslimnimo lagu yaday qaranka waxa dhibaato ku keenaya cidii dulmi wada iyo cidii cadaalad darro wada cidaas midnimadii ummadana kala tuuraysa nabadgelyadii ummadana kala tuuraysa annagu waxaanu halkaa u tagnay waa aniga ku soo sheegay cadaalad doon baan nahay waddanka gudihiisa aanu ka raadsanay doorashadii baan ku raadsanay doorasho xalaal oo xor ayaan danaxnay inaan gallo waa la iska hortaagay waana loo diiday waxaan doonay maxkamadihii waddanka inaan tagno annagoo hadda rajo badan ka qabin inay noo xukumaan ama cadaaladda ay ku xukumaan annagoo rajo badan ka qabin bal inaanu annaguna aqriga ku samarsiino taageerayaashayadana ku samarsiino ayaanu doonay maxkamadihii waddanka inaan tagno maxkamadihii waddankana waa la iska kaaga hortaagay markhaati bay leedahay waxaanu qabsanay qareen looyaraanu qabsanay ayagii baa jooga markhaati bahayd mar kasta markii nala diiday ta sare iyo ta hoose iyo ta dhexeba soomaad garan arrimahaas aan nagu kalifay in aan maxkamadihii caalamiga ahaa ee adduunka maanta adduunka waxa la yidhaahdaa waa xaafad keliya la yidhaahdaa xaafad keliya la yidhaahdaa inaan maxkamadihii adduunka iyo sharciga internationalka ee caalamiga aan la tiigsano arrimaha ka dhacay Somaliland si aan cadaaladii ugu soo dabaallo waddanka taasoo baa danteena ku jirtaa midnimadeena ku jirtaa nabadgelyadeena ku jirtaa wixii cadaalad darro iyo dulmi waxa weeyaan waxayna ka tuuray cidda waddaana waa cidda dambi ku leh arrimahaas weeyaan annagu ammaan baan ku leenahay iyo bogaadin iyo geesinimo cadaalad doonka aan ku jirto su'aasha ugu dambaysa